بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرسديال ويبا كدوادا سانا ورك تي في ورسان قodobada ka fiirsan doontagna wayba kumid aha wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ka kormeeray kumid ee iskoolada ka yaalan Baydhabo beelo qaar ee deegaanka Galmudugna waybayo ka horjeesteen xildhibaanadii dhawaan la ka magacaabay maamulka Galmudug ciidamada dawladda degmada Baraawiye waybayo habandhikeena kumid ee shabaab oo aska dhiibi degmada akhbaraadka banaanka ka fiirsan doontagna waybaan kowina banaanbaalan ku horjeeday Iiraan oo ku dheegmeelasa fiirsadayaal wayba haminama ahad ee uu isniignaha gala hayta taariikhdan iyo ka eedan tutum ilamada bilo koobaad sanadka 2020 ka hana soo bahayana qodobadii warka TV warsan hadana ka dhawaada usigi oo fisanga wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maalmoonba booqasho karoogi Baydhabo iyo wayba uu kormeeraya kumid ee iskoolada ka yaalan magaalada Baydhabo faafaynta warkaas way banin haye Maxamed Abdiraxmaan Cabdulle Maleela wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Xaamud iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda walbarashada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya geega booqasho ku soo bixiyay hana kumid iskuulaadka yaalan magaalada Baydhabo gaar ahaan iskuulka bartamaha oo iyo walku baradayaan hanraabta ka dhaqan magaalada Baydhabo onka horeen booqashadii iskuulka Kureedo waliba wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya onku warbiyay xaaladda walbarasho iskuulkaasi toy maamulka iskuulka maylanaha dhawaada iskool Cabdalla Deerow iyadaan ka faraxsana waa mayl raayus booqashooyinka meeli mudnaaytay munaasabka ka haytay geega booqatay meel bilaan wala ka baraw maamooyinkii wala ka baradayaan hatta maamo oo unugshi haysato wal baradaasan had roogta marka waliba siin lana ka dhawaada iskoolka Cabdalla Deerow waa iskool simato dawacnimo wala ka dhikaw had iyo jeerna garab surun wasaaradda Koonfur Galbeed ee waxbarashada dawladda federaalka walaaladaan kulliyoona garab surunyin waliba lana mayl raayus iskoolkii haday waako iskool baaxad wiino baahida wala halinto ilaa madaba ma samee marka waliba lana waliba siin ku sugaane saacidaad far badan kormeer far badan ku warqabow federaal haatay maamul goboleed haatay waliba lana hasin dhawaayeen waqtiba nin kooyana maylena hadhawaada gacmo furan hasiinka dhawaayeen booqashadan waliba ningata lanki geeg hana booqdo inii iswalnasi amalanninka dhikamaas waayo waliba fiiriye qofkaasi ergay dadaalku uu meel ka hayna hadii uu bilaanto la inta walka dhikaas leeroonana babaal qaada uu naftaana nii jabaan laakiin hadii hana booqdo nin kooy wala uu suubiyaan marxalad uu madaas ka sugan la ogaado taasna waliba ningata wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Xaamud iyo kormeershay Kureed iyo waliba hadala dardaaran injeediyay ardayda walka baradaas iskuulka bartamaha magaalada Baydhabo dhinaca kalena uu balan qaaday in wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku warbiyi doono xaaladii walbarashada ee ku jirta iskuulka bartamaha walku baradayaan hanraabta magaalada Baydhabo aan aad ugu faraxsanahay inaan maanta imid dugsiga Cabdalla Deerow oo ay ku dhawaad 1220 arday oo gabdho kaliya ah ay dhigtaan oo si tabaruc ah isku soo waday 20 sano ugu dambeysay asaga jeebkiisa ka waday ay maamulayaasha iyo macallimiinta iyo community-ga iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ay gacan ku hayeen ardayda dhigatan ay u badan tahay arday danyar ah iyo arday agoon ah oo gabdho ah waxaan aad u bogaadinayaa maamulka iskoolka maamul xigeenka iyo maamulaha oo hadda aan la joogin iyo macallimiintaba oo ayaga is xilqaamay inay ay gacan siiyaan gabdhahan Soomaaliyeed oo ah future-ka Soomaaliya ama mustaqbalka Soomaaliya waxaan aad ugu faraxsanahay inaan shalay aan ka howlgalnay iskoolkan danihiisa aan wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka aan la xiriiray si ay wixii dhaqaale taakuleena ama agab ah ay ugu soo gaarsiin lahayd wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dawladda saddexda waxay ga ballan qaadeen inay si gooni u fiirin doonaan wasiirkan wuxuu si gooni uga ballan qaaday inuu soo booqan doono iskoolkan markuu ugu dhow insha Allah taala
si uu u arko baahida ka jirta meeshaan deegaanka koonfur galbeed waxbarasheed iskoolkan gaar ahaan iyo iskuullada kale oo maamulka dowladda goboleed koonfur galbeed ay gacanta ku hayaan marka aad ayaan u bogaadinayaa maamulka xilqaamidda ay ku wadaan iskuulkan iyo tabaruca u sameynayaan bulshadan soo koraysa ee gabdhaha u badan. maxamed cabdiraxmaan cabdulle telefishinka iyo raadiyaha warsan magaalada baydhabo. waxaana ku mid ah beelo deegaayaan maamul goboleedka galmudug iyo waybayo ka horjeesteen xildhibaanadii dhawaan la ka magacaabay maamulkaas. faafaynta warkan way baningaaye maxmuud cali cabdulaahi. waliba abashasha duubonka kooyaha ay tahay qaar ku mid ah beelo degow deegaanada galmudug ana seyti oo sheegay intii odayaalkii sayayaalka galmudug oo la kulay xildhibaanada galmudug la bedelay sheegay intii dawladda federaalka saacad ayaan balmartay shakhsiyaad iyo kumidayna beelo galmudug qaarasho la kulay isla markaas saytana la bedelay annagoo ah beesha reer Ogokor oo 4 beelood oo Saleebaal wuxuu qaybsada ka mid ah cabasho dadweyne odayaalood culumaadiin dhalinyaro aan isugu jirno aan cabashada wada qabno waxaanu ka cabanaynaa dawladdu iyo maamulayaasha iyo saxiixayaashu waxay sheegeen galmudugtii hore la dhisay in dhismahan ku beesgaraysan yahay cid waxeeda la faragelayayna aysan jirin haddaan nahay beesha reer Ogokor si xadguduba 2 kursi baan ku lahayn sixooxoodii iyo odayaashii baan gudubsanay waxaana ka dhowreynay inay shaashada ka soo muuqdaan waana mid baa naga maqan oo shaashada ka maqan wuxuuna nooga maqan yahay musuqmaasuq dadka saxiixayaasha iyo dawladda wax maamulayday qayre wixii xildoonaha wiilka agaasimaha oo mataqaana ay adeegsadaan annagu waxaan qaabnaa kursiga yagii beesha reer Ogokor in uu ku maqan yahay waxaan leenahay nimanka galmudug inay dhisaan loo soo xil saaro dawladdu soo dirsatay kursiga yaga cadaalad darrada ku maqan si inay noo soo celiyaan sababtu ku maqan yahana warbixin naga siiyaan intaasaan cabasho ka nahay waxaan nahay niman la yiraahdo Ogokor oo 4 beelood oo Saleebaal dhashay beel kamid ah waxaan lahayn 2 xildhibaan oo 2015 markii galmudug la dhisay aan yeelanay waa noo socotay waxaan ku talagalnay inaan odayaashii iyo saxiixayaashii aan dhiibno waa dhiibnay waxaana ka soo muuqda hal nin shaashada ka soo muuqday markaan dib u baarnana waxaan ogaanay in musuqmaasuq uu ku maqan yahay ninka hadday wasiir dawlad tahay hadday tahay agaasime hadday ra'iisul wasaare tahay waxa loo tashaday oo annagoo aan shaqo ku lahayn in la qaaday waxaan codsanaynaa guddiga farsamada iyo wasiirka arrimaha gudaha xildhibaankaas naga maqan oo musuqmaasuq nooga maqan 4 beelood oo beel kamid ah nahay haddana hadday dib loo sii raaco beel waxaa la siiyay 2 xildhibaan beelna waxaa la siiyay 2 xildhibaan beelna waxaa la siiyay annaga hal xildhibaan ugu soo reeb hadday wax noo qaybinayaan inta dhexda noo dhigaan 7 xildhibaan ma yiraahaan qaybsada inta la gaarin meesha xildhibaankeenu wuxuu ku maqan yahay rag xildoona ayaa siistay dad uu leeyahay codar ka helay waxaanu kuma maqna maxaa ismoodmood iyo baabaan kuma maqna annaga 2 xildhibaan ayaan ku leenahay dhismaha galmudug ee dib loo yagleelayo ayadana waxaan u aragnaa maadaama hal xildhibaan ka soo muuqdo meesha kii kaleetana maaragtay uusan meesha ka muuqanin rag xildoona oo raba inay maanta ka noqdaan madax ka noqdaan galmudug ama madaxweynaha haddoo hawsha raxnaadaan ama wasiir hawsha raxnaadaan ama wax kale agaasimayaal hawsha raxnaadaan ciday doonaanba hawsha raxnaadaan inay maaragtay haddii la yiraahdo ay rabaan inay ku dhibac bastaan oo cod uga raadiyaan duul aan xaq u lahayn oo sharcigu siinaynin oo aan shaqo ku lahaynin oo 4 sano hadda la soo dhaafay aan meel oo jiro iyo meel oo ka yimid aan midna aan garanaynin
ay arkeen beel maaragtay haddii la yiraahdo haysata oo ku shaqaysanaysa kursigaas oo ku maqan laga soo bilaabo ra'iisul wasaaraha lagu xajiyo wasiirka arrimaha gudaha lagu xajiyo guddiga maxaa tiraa wasaaradda arrimaha gudaha lagu xajiyo lagu soo dhameystiro guddiga maaragtay farsamada lagu soo dhameystiro intaas ayaa si musuqmaasuq ah si aan cadaalad ahayn si aan galmudug anfacaynin si dhibaato keeni doonta si maaragtay haddii la yiraahdo aan wax ku dhismayn waxna ku hagaagi doonin ayay doonayaan ay ku musuqmaasuqaan ugula hareen kuna haystaan waxaan doonaynaa annaga beesha lagu kora si maaragtay cadaalad si xaqsoora si sharafa si aan dhibaato iyo aan lahayn maaragtay maxaa tiraahdaa musuqmaasuq aan ahaynin kursigan in cidda aan saxiixa u dhiibanay waa la yaqaanaa oo saxiixaha waa la yaqaanaa inay noogu soo celiyaan maxamuud ali cabdullaahi maxamuud gaabsha FM raadiyaha warsan iyo telefishinka baydhabo ciidamada dawladda ee ka sugan degmada Baraawe wayba meelaha ka bandhigayna kokumida shabaab oo haska dhiibi ciidamada meelaha ka sugan Abdullahi Jerry iyo faafaynta warkaasnin haya kokumada ciidamada al-shabaab iyo hanis dhiibi ciidamada xooga dalka ee ka sugan magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose qofkan yaa sheegay in uu soo kumid haye al-shabaab muddo 6 sano ah waliba uu soo warbiyay sababtahan ku goosaday al-shabaab halkoorta saas way mantaasi galaad badan ka arag tartiyan ku bay iyo naftay in nafti u dadka badbaadiyaan والله واسكو هيرلي دادكي دولي قال لي دولي اللي هذا اللي دولي أنكو مرينين أنا سكار أهانت أبتغي دولي ذا جال مركن مت كستو يا رجال بما يري أو ستوسع إن كساي أبتغي ذا سكدا أو إذا إن ماشي جوب ده أبتغي أو إذا إن ماشي جوب أو إذا يصير نمبر كيس كل هريرة مركم أنت هذا اللعب بشكل تنكلنا ما إلها تتكلنا ما إلها تتك الصوماليات الصافين قال ذي إنها كنا قدام وقباغة يا أنك باغر أنين إلهي أنت هو بي إن اللي دلف ذي اللي يهرف ذي درته أنت سيد مركن فهمي ياسو كتاب على كسر جريرة وحياة بدنو كده كمايان أو بلدن اسكو جيجرا والكمتن ريد أن ساس هم كباس أو دي لهي أو بدي أنوان ساس نكده ساس درتي هم كباي تكلم ما إنك باقي إنها كباها taliyaha ciidamada booliska degmada Baraawe yaa u suunay sharaxaad ku biyo qofkan ha ku goosaday al-shabaab oo ka yimid ugus oo dhibaato badan oo markaas ku qabay kaga yimid runtii halkaas wuxuu ku sugnaa asaga maadaama uu fasax qaatay oo qoladiis ka tirsanaa oo daacad iska ahaa oo howlo oo hooyadiisa soo booqdo u tagay oo kadib markuu soo laabtana shaki ay ku abuureen markaas mobiladiisa iyo hubkii asaga markaas dadka marka lagu qalday oo ku dagaalmo jiray loo diiday shaki weyn markuu soo galay kadib wuxuu marka go'aansaday in ay dilayaan ogaaday aysan arxan lahayn sidaa darteedna wuxuu soo aaday dhanka dawladda Soomaaliyeed gacanteeda madaba ay u fidsan tahay umada la qalday kulligood marka anaga runtii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliska waxay ku soo dhaweeyeen sad u jeedaanba saldhigii booliska la joogaa runtii isagana waa hadlay rasmi sirran uu caaday annagana si fiican soo dhaweeyeen qof kasta qolada ugu kamid ah ay rajeynayaan inay soo aado xagga dawladda gacan furan soo dhaweynayna insha Allah taala waxaan la dhaqmi doonaa sidii umada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan la dhaqmno haddii allin waxaan rajeynaynaa ay ka soo baxaan dib ugu soo baxaan ay walaalahooda ku soo biiraan insha Allah taala dawladooda gacantooda soo galaan waalidkoodii ay kala dhumeen muddo kala maqan taliyaha ciidamada xoogga dalka ee degmada Baraawe Cabdiraxmaan Cilmi Jimcaale ayaa sheegay in iyo hadhawaayaan qof walba oo ku goosada al-shabaab askariga dhiniciga fadhiya askariga dhiniciga fadhiya ayaa ka soo goostay al-shabaab waxa wuxuu al-shabaab galay 2012 ilaa xilligan
wuxuu ka shaqaynayay al-shabaab meelo badan ayuu ka dagaal gala ilaahay amarkii waxa weeye wuxuu fahmay waxa uu u dagaalamayaa inaysan sax ahayn oo ilaahay haleeshiisiyo ilaahay qaadishiiyo markuu fahmana wuu ka yimid wuu ka soo goostay wixii maskaxdiisa lagu shubay oo xumaa uu fahmay sidaasuunan uga soo tegey waxaan leenahay kuwa ku jira oo hadda waxa aan fiicnayn inta lagu shubay halkaa fafadhiya waxaan u sheegaynaa sidaas oo saaxiibkood oo uga yimid uuna dawladda ugu soo galay haddana wax way ku faraxsan yahay oo haddana uu ku faraxsan yahay ka imaashaha uu ka yimid ugus inay ayaguna si xurriyada oo baalkii ahaa oo inay uga yimaadeen inay ugu yimaadeen la taaban maayo waa la soo dhaweeyaa la xiri maayo waa kan walaalkood cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan TV-ga warsan baydhaba meel warkaas ku fiirsada ay tan wayba TV-ga warsan akhbaaraadka banaanka warsan media network banaanbaxaylaan ku horjeeda dawladda Iiraan iyo wayba ku dhiyana caasimada Iiraan ee Tehran boqolaal banaanbaxayaal ayahan iska baxeen jidadka caasimada Iiraan ee Tehran iyo ona muujiyeen dharaf iyo qaban dawladda Iiraan waybana iyo ku weerayena beenayaal inkaranga antiyo haridan diyaarad rakaab saarnaayeen oo la haytay dalka Ukraine banaanbaxyada iyo ku dhiyan banaankan ka yara lama jaamacadood iyo ana la sheegay intii booliiska iyo adeegsadayeen sunta dadka ilanta ku sheenasa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo bartiis Twitter koyba uu taageeran ku muujay banaanbaxyada guudaan fiirsadayaal way bantaag gabagabeeyeen warkaysan ku fiirsadaaseen TV-ga warsan xaruntiis magaalada Baydhabo warkan Ashur Ismaaciil Axmed ee dareer siyaasi Malela iyo Hasaar intii warkan kala mid reedan ku kulmaan oo bashin ku tabaane saasi amaanala